السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن غير تقييم حقايا له ميل كستا جوجتان إيسا كستانا ديجسينيسان كسو دوادا maanta iyo wararka aynihan qodobada wararka aynihanna waxaa ka mid ah Somaliland oo ku soo bandhigtay hub casriyeysan oo kala duwan banka og kuwaas oo isku diyaarinayaan dagaalkii inay waqti kasta bilaabi karaan kana sugayaan amar ka soo baxa madaxweynaha dhinaca kale qaatumo oo ay kana dhufays ku jiraan kana cabsi qabaan dagaal lagu soo qaado ayagoo war iska heen kuwaas oo ciidamo badan oo dhinaca Puntland ay ka sugayeen ku soo gaareen haddana meesha ku sugan yihiin dhufaysna ku jiraan dhinaca kale ee goojacad ilaa og ayaga laftooda dhinaca kale kaga sugan ayaa ayagana marka ayada u diyaar u ahayn mar walba dagaalka meesha ayada ka soo qaadaan Somaliland inay iska difaacaan dhulkoodana ay reebtaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi ayaa laga warsugayaa masana laga sugayaa amarka ugu dambeeyay ee dagaalka lagu qaadi lahaa kuwaas oo marka ayada sidoo u ballan qaaday ay ahayd in xuduudkii uu soo ceshan doono xuduudkii ka maqnaana soo sheegay ee Somaliland ka maqnaa ilaa ballan uu ku qaaday inuu soo celiyo ayaa laga warsugayaa asagaasoo hadda ilaa waqti sugaya ilaa hadda soo hadlin masana amar buuxda ka soo bixinin dagaalka asaga kuwaas oo ku soo bandhigeen masana hub badan meesha loo keenayay hub kala duwan oo kala casriyeysan iyo waxyaalaha qarxo oo meesha ayada in muddaba la keenayo ayaa banaanka og marka ayada aad u tuban ilaa ciidamadii oo ay kala ftooday waqtigii meeshii joogeen aad u badan yahay oo tiradoodana aad u badan yihiin oo kooxba tababar cusub ka imaatay iyo dowladda sii dhisneed iyo ciidankii wixii wadanka uu joogo oo dhan meeshii la iskugu wada keenay ayaa la filayaa inay dagaalka qaadaan kuwaas oo ka muuqato diyaar garow ugu dambeeyo camal wax ka muuqato waayo waxyaalaha ay meesha ka soo bandhigayeen masana muuqaalihii meesha ka soo baxay waa arrin lala cajibay noqotay wadankii waa la fahmi waaye inuu wadankii yahay wadan America masana wadan Europe ka mid waayo wadankii siduu u socdo iyo habkii iyo hubkii meesha la keenay hub lala cajabo noqday masana tiradiisa masana casri si uu yahay lala yaabay oo hubkii ugu dambeeyay iyo waxyaalaha qarxay oo wada ugu dambeeyay iyo waxyaalaha lagu dagaalgalay oo zaid u badan ayaa meesha ku sugnaayeen kuwaas oo walwal badan iyo walaac badan ku abuuray ummadda Soomaaliyeed una cabsanayso khaatuma dagaalka ku soo socdana dagaal yarna inuu ahaan ayaa la sheegayaa dagaalkaas oo ilaa waqti hadda la filayo inuu bilowdo ayaa hadda u eg inuu bilaaban karo waqti kasto maadaama madaxweynihii iyo xukuumadda Somaliland in badan ee meeshii hub badan ay ku soo keentay iyo ciidan badan khaatumo ay ka lafteeda walaac badan iyo walwal badan ku jiro ayaa dalbadeen hub kale iyo ciidan kale inay dhinacaas iyo Puntland ay ku caawiyaan kuwaas oo ay ka laftooda ciidamo badan u soo direen oo haddaba ku sugan khaatumo iyo Laascaanood kuwaas oo ilaa hadda dhufays ku jiraan una iska diyaar gareynaan inkastoo cabsi badan ay ka qabaan dagaalka ka soo socdo masana ka soo foodle dhinacaas iyo og marka ayada hadii laga filayaa in dagaalkaas uu noqon doono dagaalka ugu weyn ee abad ka dhaca meesha ayada maadaama dagaalkii taariikh 25 looga guuleystay dowladii Somaliland kuna noqotay fajac iyo fikir weyn ku abuurtay ummadii Somaliland ilaa dowladii xukuumadii Somaliland oo dhan kuna abuurtay cabsi badan gelisay dadkii ayaa la filayaa inay soo qaadi doonaan dagaal ka weyn say sheegeen ay noqon doonto dagaalka ugu weynaa kuna burburi doonto masana ay ku gaari doonto jab weyn kuna inay istaagi doonin sida sheegeen ilaa ay ka gaarayaan Garowe oo laga soo abaabulay sida ku eedeynayaan dagaalkan oo dhinaca Puntland ay ku eedeynayaan inuu ka dambeeyo dagaalka ka socdo ee Khaatuma iyo Laascaanood iyo dhulka ka socdaan inay ka dambeeyaan dhulkaas iyo xukuumadda Deni kuwaas oo ay sheegeen dowladii Somaliland ay ka laftooda ay u geysan doonaan waxyaalo badan iyo burbur badan haddii dagaalka ay soo qaadaan ay istaagi doonin ilaa ay ka gaaraan Puntland oo ay ka burburiyaan ay ka laftooda maadaama ay ka dambeeyeen dagaalkan iyo dhibkan ummadda Somaliland loo soo geystay iyo reer Laascaanood ay wixii ka dambeeyay ay ahayd dhib ka bilowday masana ay ka bilaabatay Garowe iyo xukuumadii Deni oo ku soo taageerayay dagaalka asaga Muuse Biixi oo asaga laftiisa baraha bulshada ka soo muuqanin muddo bil ayaa laga warsugayaa kaas oo la filayo inuu amarka ugu dambeeyay laga bixin doono oo uu ku qaadi doono dagaalka sidii horey uu u ballan qaaday uu sheegay inuu istaagi doonin mise habeen uu jiifan doonin ilaa dhulkii ka maqan ee Somaliland dhul ay leedahay 1 mitir Allah ka dhigay inuu bixi doonin kale uuna u ogoleen inuu dhulkiisa had yar uu u soo gudbi karo
kaas oo waqti kasta laga filayo inuu bilowdo ayaan ka warsugaynaa intii ay ka bilaabanayso maadaama Somaliland ciidankeeda ugu badnaa meesha ay ku hayso hub aad u badan meesha uu yaalo ilaa hadda dhoolatus badan iyo meelo badan ay qaraxyo badan iyo waxyaalo badan oo tababaraba meesha dhexdooda ay ka bilaabeen ciidamadii marka ayada tababarka hadda ka soo baxeen sidii hubkii cusubnaa loo ridaayay iyo sidii marka ayada loo dagaalami lahaa mise lagu dagaalgali lahaa iyo marka ayada haddii kolley ciidankii waxyaalo badan oo ka maqnaa ayaa iska jira oo hadda kusoo kordhay kuwii ayaa hadda la kala barayaa oo si dagaalka ay ku gali lahaayeen oo hal mar ay uga soo afjari lahaayeen oo dhulka asaga iyo xuduud ka maqnaa iyo marka ayada jabhadihii isay sheegayaan meesha ku sugnaayeen laasacaanood in hal mar meesha laga kiciyana ay filayaan mise ay rabaan ayaa la sheegaya in dagaal galkii ugu dambeeyay ay geli doonaan muddo dhow kuwaas oo ay ku qaadi doonaan dhulka asaga xorriyadii iyo marka ayada dhulkii iyo wixii ka maqnaana ay dib u soo ceshan doonaan iyo maadaama hadda ay dhulkooda uu maqan yihiin say sheegayeen